في ورئيس خاصة maanta la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa madaxweyne ku-xigeenku waxa uu tilmaamay in ay socoto baaritaanka cidii ka dambeysay falkaasi isagoo ka jawaabayay madaxweyne ku-xigeenku su'aal ahayd bal waxa ka jira warar soo baxay oo sheegayay in saraakiil xukuumadda ka tirsan ku lug lahayd dilkii taliyihii qaybta 12aad ee ciidanka Soomaaliland waxa uu yiri cidda falkan ka dambeysay horta wala baaraya لكن لا كل شيء فالك الدو جيسان كرانين أشقية دولته أو أشقية عتاب شقينية لكن واجب كوح إن الصينية واجب كقرن كوح إن الصينية نقص لابد نقول ليه هذيك وعداته لابد نبي كو مدوا الدين ديام وكجري ومضى مش كلها ومضى مش كلها يكون على عنصي وعمد دين بيجا لوضع هو إنه قرن كي كجري دين بي خاين من صف يلا لابد يبغى يلا هبعيد سني القاعدة إن كشت الملك أنا والله يا أبانا هاي مكستي عيديد يعني لين يقول مشران القاعدة ودور نعولي نروح أقلا والله وان الاستعمالي وان الاستعمالي أما كشر أما كشر أما كشر وان الاستعمالي أو أنا لو فيلم بإنه هاي ورد نعص لكن لو يفاع لكن نينك مسؤولك أرنك قلو هو كويس ثانية نينك مسؤولك أرنك قلو هدي وبدأ يوم مثلا أرنك سدل يسوي كيس وان كسب ماذا وحكى له مدحونا ku-xigeenka Soomaaliland oo ka hadlay qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho isagoo tacsiyadeeyay eheladii dadkii qaraxyadaasi ku leeday isla markaasina dhinaca kalena qaraxyadaasi ku tilmaamay in ay yihiin kuwa lagu leenayo dadkii ummadda halbowlaha u ahaa nimankan hal waxay ka tamariyaan meel oo maamulku luusiya ama maamul jirin oo Iraq oo maamul jirin Afghanistan Pakistan maanta waxay galeen maanta de Soomaaliya way inagana calaasi ku dawo jira ninka jaamacada la qarxinaya waxa la yeenaya waa creamkii umada maskaxdii umada oo soo baxay la yeenaya hay waa ciidtii amar madaxweyne ku-xigeenka la weydiiyay su'aal ahayd suurtagalnimada in dhinacyada Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay iska kaashan karaan xaaladaha geeska Afrika ku soo kordhay sida qaraxyadan istaba joog ah waxa uu yiri maanta dawladda Shariif الربع محكم حمش واحد لوجي ما أنت يسوي باهتها كلهم باهن دي أنا يمكن توان تيس اسمه يوهر جاري ممكن أنا حكومة هو سياسة وسياسة أبدأ في لوجي وهذا سياسة لوجب باهن يوقف سياسة فرن يولي يمادو سياسة فرن يولي يمادو dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ka hadlayay hawlaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in guddiga cusub ee doorashada Soomaaliland iyo kambaniga ajnabiga ah ee loo doortay inuu la shaqeeyo guddiga la siiyo fursad ay hawshooda kaga baaraan degaan si ay uga soo baxdo buuri wax raali geliya dhammaan dhinacyada ay khusayso hawsha doorashadu isagoo tilmaamay in iyaga ka xisbi udub ahaan ay ka go'an tahay in doorashada la qabto waa Axmed Xuseen Warsabe Universal TV